waxaa la yidhi muslim iyo gaalaba dhuuntay u gashay qof walba oo duulaya qof walba oo duulaya ayaana beri oo kale marka wixii kusoo dhammaadaan xaaladihii caafimaadka wax walba amartido diyaardaa ku qoran tahay bay soo reebtaa dadkii baa ka sheekee gabadheedana waxaa la yidhi siilkay farta ka gelisay masiilkay farta ka gelisay mise way fiiris siilkay farta ka gelisay kusoo walaaqdaa la yidhi biyey ka dhex raadinaysa in lasoo wasiin kalo ma dhici ka dheh gacantay lugay haayeen naaheedhe gabadha way fiirisay dheh gabar iyo gabar miyaa isku ekayn gabar iyo gabar qofaan gabar ahayn iyo gabar miyaa isku eg maxaa dhahday qof gabara iyo qofaan gabar ahayn miyaa isku eg seebay far u gelisay waaba halise amay gudnaynhay gabadha ee maraykanka ku dhashay may meelmahan qaxooti bay ka baxeen saa jecelahay ma gudnaynhay qaxootii gabdho badan oo UN-ka mogtahay UN-ka gabdhaha waa la fiirinaa la dhihi jira haddaa guddaan waa laydin reebaa ma gudaayeen waa baqan jireen si usoo haddii aan lagu gudan xitaa baayo waa gabarnimadu dee waa xuubka masaga mar walba isbedelay xuubkii fartan la gaartay gabadhan waxayba taagan tahay waa ikufsatay habarto oo meelmaha u qaqabtay 17 jir waay 17 jir intee u kontroolaad yaa u dirsatay yaa u taqaanaa daa naag weyn waaye habraha fiir iyagu waxay ku leeyihiin aniga markaan aan 9 sano jiray xaaqinkan ka bilaaba xamar waa ilaa iyaba hargeysa wadi jiray intuu waaga baryin markaasaan xaaqinka markaan ilaahan kugu dhaaray xamar xaaqin laga bilaabo ma hargeysa lagu algey karaa gabadheedii u faanay hawa yani inaad ku dayatida howlkar noqotid iyo waxaasay ka rabaa hadda howlkarkeedii ma aha acceptanceyaa naga maqan we have to accept cunugan yaakhi waxaan u dhalay anaa wastamay ise ima dalbanin jacaylkii hooyanimo cunugan muwaadan saxarada ka dhaqin isagoo magacaad u bixisay aqoonin oo kaaga aan aqoonin oo taxsiga iska qaadi karin oo mar hadduu weji ka saar iska qaadi karin xaarka ka dhaqaysoon diin lahayn oo iimaan lahayn oo wuxuu yahayba aan jirin soo ma soo jeclaano ma soo shushuminin tan waaya soo weyn isku dagaali kartiin marka waxba walaa hooyooyinka ku xiranta laakiin hooyada hadda anigu kilibka ay ka hadlaysaan daawaday waxay tiri aniga waxay tiri gabadhayda habeenkii bay bixi jidhay waa soo qabtay gurigan qayb hoosaan deganeyn albaabkan ka xiray iyadoo socotaan u yeeray gurigan ku celiyey maalintii dambe inta iska ka egto kabihii wax qashinka banaanka dhigayay isla habeenkaa inay ahayd baan jecla horta way weydiisay xagga u socotaa boyfriend baa u socdaa bay ti boyfriendkayga ii taagan albaabaday ku xirato waa ku qaqaydhisay qashinkan qaadaya inta iska dhigto kabihii gacanta qaadatay bigtiri ninkii bay raacday waa beenteed ayadu waxay tiri booliskana ka hor qirtay waxay aaday naag Soomaaliya waxay tan gabadheeda fursad ka saaray guriga maamo Soomaaliya oo aabaha caan yahay oo hooyadu caan tahay gurigaas la geeyay waa lagu ogaa gabadheeda gurigaas inta bari waa raadinayay waxay ka dambeeyay waxay booliska la leeyahay yimi horta waxay gabadha markay dambe ii soo noqotay baa fiiriyay markaasay fakatay fiiriyay tiraani waa kala qabtay waa fiiriyay abaayele maxaa marka ku dhaxay qurux badan halkaanay ka soo baxday booliskii baa yimaaday ku dacaweysay iskoolka miyaa riboodka laga gudbiyay ma garanayo ayadoo war aad ku salaamay ayaan xasanay oo ku hanaqsanay walaal qaali aniga adiga aad baa ku hanaqsanay jirafay ilaa aad nabad ilaa aad aborjis ku dambayso walaal u kaadi kiiskaas ka waadin gabaraha hadlayso xushmay taamka caddo bow wax yar marka ayaana waxay tiraahday booliskii baan ka ag hadlay tir xaqiiqadii ka ag sheegtay marka maamada waxay dhahaysay haddaa xitaa ilmihiina dishaan garaafe u geysataaniin haba sheeginna bataatan too tarmiito ha qadaysanina haddaa ameerika joogtaan waxay aniga waxaa saas oo dhan la iigu waka waa meeshan ka xanaaqay iyo markii odagii waalnaa oo dab casar aha uu yiri hooyo fiican weeye dhaqan leh markuu yiri wuxuu yiri siilkay ka fiirinaysaa gabadha maxaa siilkeedu kuyaa ku dirsadaan iyo iyada waxay tiri wax walboo samaysaan minka taabsaday tiri hadda waxa ay noo sheegaysa ma runbaa marka aabeed wasada seen ku aaminaa alla wallaahi laagsi xun bay u galeen intay xireen waxaa la yidhi naag Soomaaliya oo mar soo damiinan jirtay lacagta ma aragta ayuutada iyo waxaas ma arag lacagaha xadaafka ee aruuri jiray bay naagu dhiiban jiray naagtii waa markii la xiray waxay ku tiri soo damiino ila lacagta in lagu ogaado tani ma rabto cayr bay qaadanaysa soo damiinay ku tiri soo damiinatay
saytirna lacagta rabaa inaan wax ku qabsado ila barakan kale dadka dhan baa u jabaysaa soo boogid hafiya balowbay tay tiri binaagta la dirdha saytiri boolis oo anu mas-uulka ma noqonayo dhab baa la siiyo arigu celi hadda iyadoo cagta ka xiran baa igu dambaysa wallahi laakiin marka arka caloosha ay xanuunta I think jailka lagu celiye no that is sexual abuse ana hadda kuu sheegaayo molestation aa la dhahaa naag xaafadaydaa samaysay mogtay gabar 20 jiro iyada ay dhashay ilaaha jaamacaddii soo qalinjibisay frankeedii aaday waxay celebrationkii oo maalintii jaamacadda ay soo qalinjibisay ay israaceen saaxiibada because annaga saaxiibadan iyo dariskeen walaal waa nala soo qaxiiso ma ogid ani waxaan xasuustaa maalinta jimcaha aabbe inaan dhihi jiray aabow na celiciyow markaasuu le may maalin jimcada anaa idin markaasaan le inta beriyoo kaleetoo dhanba firaaqa ma lihin maalinka jimcahana adaana wato goormaa saaxiibadeen la kulmaynaa kaas wuxuu dhihi jiray saaxiib muxuu kuu sheegaa aab saan ku yiri wixii casharadii isla akrinaynaa asaga waxbarasho meesha lagu sheega marka dhulkuu fadhiisin jiray kaas wuxuu dhihi jiray ilmaha kalaan haysanaa adiga 9 sac markii la gaaraan kusoo celinaa waayahan dhihi jiray intaan qabaystaan labisto aan bixi jiray intee aadee mataqaanaa cambuurku ka gaaban yo aabbe ii soo gadi jiray cambuurkaas inta dhacas ku siiyaan kaba gashto aan jow dhihi jiray waxaan raaci jiray taxi xaafadeeda gabadha waa ii tilmaantay waa aqiinay gabar faadumo maxamed faarax la dhaho xaafadeedaan tegi jiray isku iskoolaan ahayn miskiina ahayd maaqa hadda inay dhimatay in kaleeto okay hooyadeed sacuudigay jiri jirtay gabadhaasayta ayadeedana nooleed okay xaafadeedaasaan tegi jiray walaa marka qofkaasayti maanta waa kala lunay laakiin haddaan 20 jir kusoo gaari lahaa saaxiibo badanaan lahaa laakiin dagaalka iga qaaday dadkan laakiin ilmihii isla dhasheen ama iskuulka iskula dhiganayeen ayay friend ka dhigteen dadkaasay saaxiibo yihiin dadkaasay ku dhaqan yihiin dadkaasay ku luqad yihiin adiga meeshan marka dhaqankaagii dictoorka ahaa narcistiga ahaa dee waa inaad iska dayso maxay tahay siilka ka faaganaysa gabar 20 jire naagtaa waxay samaysay gabadhi markay soo noqoto 1 am oo taxi ay ku timid xitaa labada inta laga qabtay laba wiilo iyada la dhashay ee habartu waa fiirinaa tiri habartii iyo labada wiilba xabsi oo wiilashana fiirinayaan gabadhii dhaqan xumo way waxaas maxaa waxay tiri hooyaday inay fiiriso waxa iga sii xunay tiri in labadeeda walaalo siilkayga ay daawadaan ay tiri iyagoo qaangaara ah because waxay tiri midna sanad iga yaree midna sanad iga weyn ay tiri midna 21 jira tiri midna 19 waay siilkay korkeenay tiri walaalahay saamaamadii maxaa lagu sameeyey waa la xiray hadda ba xirantay mise soo sidaay iyada iyo labada wiilba waa la xiray proportional soo siiyey 15,000 oo lacagteena baanka ana waa la soo ganaaxay xaafadeeday degan tahay waxba maryaha isku duuduubinayaa dhilaa tahay because ninkeeda 15 jeer ayuu wuxuu ku furay 3 dalqadood isku daba raaciyay markaasay nin waxay siisay xitaa la yaqaan xaafadeena degan oo Soomaaliya waxaa jirnaagaha maxlalo $2,000 okay u ka qaadana haduu kuwa saynin hadduu kuwa saaya laakiin 1,500 uu qaadanaya uu ku maxlalaya wuuna kuwa saaya salaamu calaykum ayaane diintu inay taa xarimtay ma ogtahay ayaane diintu inay xarimtay ma ogtahay taas ya diintu inay xarimtay ma ogtahay ayaan xasanay balay walla ayaana tirada muu jooga ninka waa taqaanin cali yaala laakiin day ayaana diintu way xarimtay diintu waxay ku ogashaan ku sheegaya dhageyso saddex daraaqo dadka ku dhaca waa ogahay way jiraan kaan waxaan aqaanaa naag 2 ilmood oo dambe ninkeedii hore dhageyso nin baa qabay waa Soomaaliya yaa waxa ka hadlaysaa qurbadiina ka baaba'day baba Soomaaliya naag ninkeedii ay ma garanay baladu anuu nin naag uu dalqad siiyay walaalay macaan horta naag uu dulqaad badana ninku yiri hoo maxaad ka jeclaataa maxaad uga noqotaa saddex kii ku dhameeyay waaba ka dhamaatay ayaanay ayaan gabadha soo qabso amran jansin wiilkan I was born this way hay ku soco maxay waxna qantay ka bilow bal ayaan xasanay wallahi caadi mutid adiga soo balay atay wallahi qof gacan ku taani waxa tahay garanaysa afar qof bu ilaahay soo naco dhan ana soo taagnaaniyo aniga wareyso wallahi abaayo habeen horna qolkaada ku jira moto ay soo qabatay because wax kasta saytaa oo abaaraysa dawr qof caadi mutid wallahi tamayde maxaa ninka waa run xaqiiqadu waay waxaan ku jeclaa wallahi waxaan ku jeclaa
runtaa sheegaysaa de walaa runta